mudan madaxweyne bahda saxaafadda marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isku kaaya keenay. shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay arrimaha uu madaxweynaha ka hadlay oo si qeexan oo tafaftiran uga hadlay. marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo madaxweynaha falkii xumaa oo tacadiga ahaa oo runtii lagu bahdilay ee lagu sameeyey doraad markii heshiis lagu galay xabad joojin oo odayaashiisii dhaqanka, saraakiil, beesha caalamka, waddamada aan saaxiibaha nahay ay ku qanciyeen in xabad joojin la sameeyo, madaxweynahana uusan samayn banaanbixii uu gurigiisa halkan ugu soo noqdo. xaqiiqatan isbaaradaas loo dhigtay waxay qaadatay muddo 3 saac ku dhow oo bahdilka ah oo la foolxumeeyey oo runtii la gaarsiiyey meel aad iyo aad u hooseysa sharafkiisii, sumcaddiisii, heybaddiisii wax loo dhimay loogu talagalay in laga reebto wax alla wixii ciidan ahaa iyo wax alla wixii qalab ahaa uu haystay uu isku ilaalinayay oo isagoo keligiisa uu halkaas ka soo tago. alxamdulilaah shaqo badan kadib si sharaf leh iyo gurigiisa ugu soo noqday. waxaa ka horreysay maalintii ka sii horreysay doraad muddo 20 saacadooda yaa waxaa lagula dagaalamay hubkii cadowga loogu talagalay oo noocyadiisa kala duwan ah. hadday tahay beebeeyo, hadday tahay madaafiic, hadday tahay dhashiikayaal, nooc walba oo kala duwan oo ciidanku ay isticmaalaan. waxaa loola dagaalamay sidii cadowgii oo kale. waxaa loogu talagalay in halkaas lagu dilo ama marka ugu sahlan tahay lagu waxyeelayo. muxuu galabsaday marka madaxweyne sheekh shariif? waa la yaqaanaa, waa madaxweynihii dalkan ka bixiyey kumeel gaarka, waa madaxweynihii shabaab kula dagaalamay halkan anigoo prime minister u ah. aniga isagoo wada shaqaynayna yaan magaaladan ka xoreynay shabaab oo ka xoreynay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. si nabada yaa xasan sheekh maxamuud loogu wareejiyey xilka iyadoo loo nadiifiyey magaaladan. saad ogtiin magaaladan shabaab yaa nus haysatay. duruuftaas adag iyadoo lasoo maray, dadaalkaas badan iyadoo lasoo maray, doorashadii lagu qabtay magaalada dhexdeeda iyadoo dibadda laga keenay oo lagu soo dhoweeyey xasan sheekh maxamuud. ma istaahilaan madaxweynihii intaas sameeyey inuu naftiisii khatar geliyo. waxaa ku xigay aniga oo uga tegey qalabku hadda kula dagaalamay beebeeyada oo 100 gaaraya haddaysan dhaafin. hal beebee kuma soo dirin. markaan imaanayna hal beebee dalka ma lahayn. hubkaas waxaa loogu talagalay cadow, looguma talagelin madaxdii shalay isaga ku wareejisay xilka oo si sharaf leh oo soomaalinimo ah oo wadaniyad ku jirta shaqadaas ugu qabatay oo ugu wareejisay. waxaa intaas dheer waxaa lagu weeraray isla maalintaas ra'iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo salaadiin kale oo ugu horeeyo ogaaska beesha murursade oo weliba loo diray suu sheegay madaxweynaha inay sulux ka keenaan iyagoo ku maqan halkaas iyaga naftooda khatar lagu geliyey oo ah wax runtii cusub oo dhaqanka Soomaaliyeed ku cusub. maxay tahay ujeedadaas marka? waxaas dhan loo yeelayo maxay tahay? waxa weeye waxaa la qabanayaa banaanbax. soo banaanbax ma aha wax dastuurka noo ogol yahay. banaanbaxu soo ma aha wax qodob ku jira dastuurka ah oo qof kastoo muwaadin ah inuu soo bandhigo shucuurtiisa iyo dareenkiisa. banaanbaxu soo ma aha waxa shacabku ay ku weydiisanayaan dowladooda waxa ay rabaan iyo waxa ay dhibsanayaan. maxay tahay dhibaatada ku jirta haddii shacab la soo saaro? waxa weeye doorasho diid weeye, wax kale ma aha.
maxaa yeelay sheekh shariif iyo raggiisa kale waxay ka banaan baxayeen in dalka doorasho u galo xalaal ah oo la wada ogol yahay oo wada ogol ah oo consensus leh maxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku diidaya doorashada marka waa xaqiiq waqtigiis waa dhammaaday muddo badan iyo wuxuu ka hadli jiray uu oran jiray hal maalin ku darsan maayo isagoo masaajid ka hadla oo yiraahdo 15 May 2026 yay iga egtahay xilka hal maalin ku darsan maayo 100 jeer yuu ku celceliyay hadalkaas waxa intaas dheer wuxuu samaystay dastuurka naftigiisa oo sheegaya 5 sano inuu yahay wuxuu afkiisa ka sheegay ma aqaan in masaajid ahayd in kale wuxuu ka sheegay dastuurkan inuu saameyn ku yeelin ama aan lagu dhaqmayn xilligan oo lagu dhaqmi doono termka ku xiga si publica yuu sheegay macnaheedu waxa weeye dastuurka u samaystay oo aan la isku waafaqsanayn oo aan wada ogol ahayn oo aan la isku raacsanayn dhaqangalkiisu wuxuu sheegay 100 jeerna sheegay inuusan uu yahay termka soo socda marka wuxuu ka qaatay 5 sano intii kale dastuurkan been abuurka ah aaway waxa uu ku sheegtay in maxaan ku yiraahdaa golaha wasiirada xildhibaanada ah inay iska casilayaan maxay iska casili waayeen hadduu yahay dastuur sax ah uu aaminsan yahay isaga naftigiisa dastuurkan wuxuu u samaystay halkaas sano oo ah muddo kororsiga waxa weeye muddo kororsi aan heshiis lagu ahayn cid qaadan karta malaha mana ogolaanayno saxna ma aha muddo kororsi sax ma aha waxa weeye waxaan leenahay xasan sheekh maxamuud walaalow waqtigaagi waa dhammaaday ku soo noqo miiska waa hadal ku soo noqo dalkan doorasho ha galo doorasho loo dhan yahay oo ummadoo dhan u dhaxeeya ha la galo xoog cid ku haysan karta saan u sheegnay marar badan ma jirto xaggee xoog yaallaa dalkii aawe waa taa somaliland meel daran loo diray oo uu ku khasbay inay yuhuud aadaan iskama aysan aadine waa isaga xanuun iyo dhib iyo cunaqabateen uu u geystay weeye aawe puntland xaggee joogtaa soo gaar hadda uma taagna soo ma sugayso ficilkiisa waxa uu samayn doono oo laga yaabi karo haddii uu saan ku sii socdo in puntland la waayo aawe jubbaland iyaduna soo saas maaha soo jiskaas kuma socoto maxaa haray soomaaliya marka haddii somaliland tagtay puntland iyo jubbaland ay ku xigaan intii kale aawe dowlad goboleedyadii aawe koonfur galbeed xaggee joogtaa hadda dhibka koonfur galbeed maanta ay qabto waxaa ka mas-uula madaxweynaha ka mas-uula galmudug aawe waa taas lagu murunsan yahay 3 sano uu iska fadhiya madaxweynahooda yaa gaarsiiyey meeshaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud aa gaarsiiyey hirshabelle iyaduna aawe waxaa la iskugu soo haray marka xamar magaalada muqdisho marka magaalada muqdisho miyaa qof walba qayb ka qabsanaya marka qof walba qayb miyuu ka qabsanaya meeshaan dood baa taalla xasan sheekh doodaas inuu ka qayb galo ma rabo waxaa taala dood siyaasadeed uu ka gaabiyey annagoo siyaasiyiina ma doonayno kursiga xasan sheekh inaan ka riixano ama aan ka ridano annaga waxaan doonaynaa inaan xalka soomaaliya aan qayb ka noqonno waxaan doonaynaa inaan mas-uuliyadda dalka aan qayb ka noqonno yaan doonaynaa waxaan doonaynaa inaan kula tartanno xasan sheekh siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda amniga siyaasadda arrimaha bulshada siyaasadda maxaan ku raahdaa arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda inaan kula tartanno waa inuu la yimaado isagana waxa uu ka qabtay 4 sano uu joogay iyo wuxuu qaban doono annaga meesha u soconno waa meeshaas wax kursi iska riixanaya ma jiro waxaan aaminsanahay inaan xasan sheekh uga fiicanahay intaasoo dhan isagana waa inuu sheego inuu iga fiican yahay
sheekh shariifna waa inuu la yimaado waa inay doodaas ay taallo maxaa yeelay waxaan nahay dad ama dowlad dimuqraadi ah ayaan nahay laakiin xoog yaan ku qaadanayaa macnaheedu waxa weeye xasan sheekh waxba lama imaan kara marka nalama tartami kara marka iskuma kalsoona marka dee xoog xagee ku qabsanaysaa marka xagee xoog geenaysaa barakaca waa arrin kaloo taagan oo iyada nafteeda loo baahan yahay in laga hadlo mas-uuliyadda yaa iska leh in ummaddan soomaaliyeed oo madaxweynaha loo yahay in loo khidmeeyo adeegooda laga shaqeeyo waxay ahayd inuu guryo u dhiso waxay ahayd inuu caafimaad siiyo waxay ahayd inuu waxbarasho siiyo yay ahayd inuu noloshooda yarta ahayd oo ay dhibka ku jireen duruufta ay ku jireen oo maciishaddu ay maxaan ku rahdaa aysan awoodi karin iyo noloshii in loogu daro dadkii in la barakiciyo oo caruur ku jira oo duqay ku jira oo dumar ku jira oo dad masaakiina oo cuyaamo ah ama maxaan ku rahdaa duqay ku jira mas-uuliyaddiisii aaway marka madaxweynenimo xaggee jirtaa annaga intaasoo idil weeye waxa laga hadlayo in xasan sheekh la dareensiiyo ha lagu dareensiiyo sidaanoo kale shaksi ha loo dareensiiyo baranbax ha lagu dareensiiyo waxay dhashay marka intaas oo laga hadlayay doorasho oo lalahaa xasan shiikhow talada dhexda dhig miiska ku soo noqo doorasho lawada ogol yahay keen siyaasaddaada keenso intaan sheegay ah dhaqaalaha maxaa ku kordhis maxaa ummadda u qabatay aawi dhalinyarada ma u samaysay shaqo abuur ma u samaysay maxaan ku rahdaa eryooyinkii dhaqaalaha sida beeraha kalluumaysiga xoolaha ma hormaris maalgashi ma la keenay dalka mushaharka shaqaalaha ma loo kordhiyey dakhliga dalka kor ma loo qaaday ciidamada qalabka sida mushaharkooda ma la kordhiyey intaas yay ahayd inuu la shar yimaado oo dhaqaalaha ah arrimaha bulshada saas oo kale inuu la yimaado wixii annaga aan uga tagnay inuu wax ku daray caafimaadka wax ma ku daray annaga waxaan uga tagnay caafimaad free ah waxbarasho ma ku daray annaga waxaan uga tagnay waxbarasho free ah annagu jidad baan dhisaynay halkan ilaa balcad halkan ilaa afgooyi muxuu ku daray waxa weeye annaga doodaas wey dooda aan rabno xasan sheekh inaan taan la fariisanno aan la jexjexno oo ummadda codeynaysa aan horgeyno haddii rabaan ha ku soo celiyaan awalba shalay waa ku soo celiyeen doodaasuu keensaday waa nooga guulaystay sheekh shariif hore uga guulaystay anigu iga guulaystay geesinimadaasa la rabaa inuu la yimaado oo uu yiraahdo amniga waxaasaan ka qabtay ciidamada qalabkiisa waxaan u kordhiyey mushaharka waxaan keenay intaasoo qalab ah intaasoo beebe ah yaan kusoo kordhiyey intaasoo ciidan aan kusoo kordhiyey intaasoo dhulan ka qabtay shabaab amniga saasaan yeelay yay ahayd inuu la yimaado xoog waa meesha ugu hooseysa ugu lidata wey inuu yidhaahdo anigu waxaan ku joogayaa xukunka awood iyo xoog yaan ku joogayaa taasna cid ka yeelaysa ma jirto doodaas xasan sheekh maxamuud dood dhammaystiran ma aha qalqalka marka amniga galay xageeba ku dambeyn karaa marka ilaan qalqal waxa weeye siyaasaddii waa ka soo tegey siyaasaddii waa keensan waayey doodiisii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo wadar ogolna waa keeni waayey marka xagee gashay marka markii siyaasaddii ee halaawday waxay gashaa amni xumo iyay gashaa waa meesha hadda ay taagan tahay marka oo madaxweynaha lagu weeraray gurigiisa oo ra'iisul wasaarihii lagu weeraray oo maanta la leeyahay jenaraal odowaa yaa lagu weerarayaa oo lagu hareeraysan yahay jenaraal odowaa waa ninkii taliyihii aniga taliyaha xooggii ahaa oo shaqada wanaagsan qabtay oo shabaab meelo badan ka xoreeyey isagii markii uu yimidna inuu soo ceshaday oo uu ku soo ceshaday karti iyo dadnimo iyo aqoon iyo firfircooni uu ku soo ceshaday haddii la yidhi waa la weerarayaa oo waa la soo qabanayaa haddii yaa badbaadaya marka ninka weeraraya oo taliyaha xoogga ah ibraahim berri haddii shaqada laga qaado soo la weerari maayo mahad salaad soo la weerari maayo asad dayaano soo la weerari maayo xagee maxaa looga dan leeyahay weerar hubka laga qaado oo hubka hadduu dhiibo ila nin maxaan ku idhaahdaa galay weeye eedo badani oo shabaab intaas la soo dagaalayay
يا أمني سوقايا وحوي أرنتاسي وحي كينيسا وحال يراهدو كايوس يا كينيسا بربر كعيد كينيسا تعرف كمان كدمايا kala dambeynta dhumaysa amar kala qaadashada dhumaysa maxaa yeelay yaa weeraray odowa ninka weeraray soo ninkii shalay garaadaha uu siiyay ma ah oo taliyaha u ahaa ma ah ninka weeraraya taliyaha hadda weeraraya sidee qalbigiisa ugu kalsoon yahay bari inuu amaan galayo ama magan galayo hadda hadduu weeraro generaalkii kaga horreeyay meesha chain of command ka dhumaya waxay tagaysaa qabiil iyo qabyaalad iyo tagaysaa nin walba wuxuu aadayaa heebtiisa reerkiisu aadaya ciidankana saasuu ku burburayaa marka maxaa yeelay ciidankaani ciidan isku gegeeyey oo weli maxaan ku raahdaa laisku kabkabaayo wey oo jilicsan marka haddii kalsooni darro la dhex geliyo amarkay kala qaadan waayaan oo taliyaashii laisku amro oo lagu weeraro oo madaxweynayaashii lagu weeraro ciidankaasi niyadee ku shaqeynaya marka muxuu noqonayaa ciidankaas marka arrintaasna iyada naftigeedu waxay keenaysaa qalqal siyaasadeed iyo keenaysaa waana meesha hadda aan taagannahay qalqal siyaasadeed keenaysaa waa taas midnimada taabatay oo aan ka hadlay Somaliland meeshay taagan tahay oo la sii fogeeyay weliba hadda Puntland meeshay taagan tahay waa qalqal siyaasadeed weyn meeshay taagan tahay oo ay khatar ku jirto haddii xasan sheekh madaxweynuhu wax ka bedelin hawsha uu ku dhex jiro uusan ka bedelin iyadoo nafteeda khatar ay tahay Jubbalandna saasoo kale weyn dalku wuxuu galay qalqal siyaasadeed waxaan nooga faa'iideysanaya marka cadowgeena iyo qof walba oo runtii ku farxay Soomaaliya xaaladda ay ku jirto yaa nooga faa'iideysanaya xitaa waxay gaartay madaxweynihii Mareykanka Donald Trump intuu banaanka soo istaago inuu yiraahdo Soomaaliya madaxweyne ma laha Soomaaliya dawlad ma laha Soomaaliya ciidan ma laha military ma laha Soomaaliya booliis ma laha Soomaaliya wadanka ugu musuqmaasuq badan waa adduunka waa dad waalan oo isdila waa dad waalan oo isdila waa dad wasakh ah heerkaas uu la gaarsiiyay marka ma inaan ka rumeynaa marka arrintaas soo ka rumeyn meeno haddii xasan sheekh uu ku socdo waxa uu hadda ku socdo oo annagu aan ku murunsannahay sharciyadiisa oo aan leenahay Soomaaliya madaxweynaheeda sharciyad ma haysto oo jaraa'idada adduunka lagu qoraayo ciidamada saasoo kale Soomaaliya marka la leeyahay Soomaaliya military ma laha macnaheedu maxay tahay waa military kii hore aan ixtiraamin military aan ixtiraamin madaxweynayaashii hore weeye meeshaas meesha ku socoto marka madaxweynaha waxaan u sheegaynaa xilligiisa dhamaaday arrintaas ha ka dhabeyn arrintaas annagu waxaan aaminsannahay Soomaaliya dad fiican inay yihiin annagu inaan wasakh ahayn waxaan aaminsannahay corruption waa iska jiraa inaan hagaajisan karno waxaan aaminsannahay dawladdeena kabkabka inaan haysan karno maalin walba tallaabada ha qaado ha kufto ha kacdo waxaan aaminsannahay madaxweynaha si kasta ha ahaado in marka dambe miisku soo fariisan doono oo la wada hadli doono oo dalku uu aadi doono doorasho uu aadi doono laakiin meesha ay hadda wax ku socdaan oo maalin walba cid la weerarayo madaxweynuhu waxaad ka dhabeynaysaa perceptionka bannaanka yaalla oo la aaminsan yahay intaas uu sheegay madaxweynahaas Mareykanka uu sheegay madaxweynuhu ummadda Soomaaliyeed ha ceebeen adigana ha ceebeen dowladnimadaadana ha ceebeen أنا هذا واحد سوى جيدنا يا مرك هالبربوسل وأنا أمسنا هاي إن أنا ولي أنا محنكور هذا مدحوينه ودرجة مسكود دقي ولا فريس حسن الشيخ أنا ولا ما فريسنا صار حلك وقتها جي هالمر يعني دبت سكوا عرق دلك جويس سكوا ما عرق إلا هذا نسمع عرق هل أرين يعني روائنا أن كضيو مدحوينه هراءهان مسؤوليتنا يجا صارن oo proposal ah oo aan soo jeedinayaa waxaan soo jeedinayaa madaxweynuhu koow talada dhexda dhig madaxweynuhu hubka la ordayso iyo beebeeyada la ordayso waxa lagu talagalay cadowgeed ha ku weerarin cidna ha ku weerarin xabad joojinta ayaan dhawey dorad la gaaray
ballamadaadu aad ma fiicnee waxaad yeeshaa ballantaas adkee cid dambe ha weerarin waxaan kale oo aan soo jeedinayaa oo aan madaxweynaha sheekh shariifna ka codsanayaa hal mar oo kale inaan weydiisano madaxweynaha inuu nala fariisto anaana marti qaadaya gurigaygaana ku marti qaadaya annagoo 3 madaxweyne ah 2 madaxweyne hore iyo isagoo xilka uu ka dhammaaday soo ma garan inaan la fariisanno oo aan ka wada hadalno the way forward doorashada aan ka hadalno doorashada modelkeeda aan ka hadalno kadibna aan farsamo u gudbinno shisheeye waxa weeye inayna soo fargeliyaan mararka qaarkood ma fiicna hadday xaaladdu xumaato waa loo baahan yahay laakiin waa laga baaqsan karaa maraykanka safiirkooda sihayahooda ingiriiska safiirkooda waa soo galeen hawshan waa dhex galeen waa lagu kala kacay waa shaqayn weyn isagaana mas-uul ka ah maxaa yeelay isagaa ah madaxweynihii qaranka isagaa loo haystaa fashilkaas shirkaas haddana waxaa jooga dowladda aan saaxiibaha nahay ee turkiga oo aan aaminsanahay si genuine ah inay u rabto soomaaliya hawlaheeda iyo siyaasaddeeda inay u xalliso iyadana waa joogtaayo halkay joogtaa shaqadaasi ku jiraan laakiin waxaa ka wanaagsan annaga inaan xallisan karno yaa ka wanaagsan marka anoo ka codsanayo madaxweyne sheekh shariif waxaan rabaa xasan sheekh maxamuud inaan u diro maxaan ku rahaa martiqaad oo biri 11 markay tahay 11 am aan gurigeyga ku qaxweyno oo aan uga hadalno arrimaha doorashooyinka aan uga hadalno arrimaha amniga aan uga hadalno oo aan uga hadalno annaga inaan waxayna xallisan karno oo aan shisheeyaha ka maarmi karno haddii uu diido marka ama uusan imaanin waa uga mahad celinaynaa saaxiibada soomaaliyeed oo diyaarka u ah oo u heelan inay arrintan soo dhex galaan maxaa yeelay suu sheekh shariif u sheegay marxalado badan iyo xaalado badan yaa la soo maray oo qof walba wax ku soo daraayay laga soo bilaabo cabdiqaasim allah caafiye waa yaro xanuunsan yahay allah caafiye uu ka soo shaqeeyey cabdullaahi yuusuf waxbuu ku soo daray allah u naxariisto sheekh shariif waa biila taagan yahay anaa markhaati ka ah contribution weyn yuu ku lahaa dowladnimada iyo ciidan dhiska iyo siyaasadda xasan sheekh naftigiisa taramkiisa koowaad waa lahaa anna waa ku darsaday marxaladaas oo dhan iyay soo maraayeen inay naga khasaarta marka ma rabno oo aan shisheeye aan u dhiibno taladeenna aan u dhiibno waa ka baaqsan karnaa waana ka maarmi karnaa laakiin hadday noqoto waa ku soo dhowaynaynaa si ay noo kala dhex galaan oo xal ay uga keenaan xalka aan rabnana waa very simple dalkan waa inuu doorasho aado dalkan waa in siyaasad degan oo stable ah loo dhaqaaqo oo violence iyo conflict iyo dhibaato halkaas ay nooga harto maxaa yeelay intaana noogu filan ceeb intaana foolxumo noogu filan sharaf darro intaana noogu filan marka madaxweynow intaan ha dhaafin waxaan kuu fidinay martiqaadkaas noo imow doorasho u soo diyaar garow wax kale lagaama rabo la imow ajandahaaga siyaasadeed ka iibi baarlamaanka sidii shalay lagu doortay markii ka horreysana lagu doortay yaa lagu dooran haddii ilaahay kugu talagalay ilaahay kuu qadaray yaa og qofkii madaxweyne noqonaya sheekh shariif baa noqon kara hadduu ilaahay u qoray anaa noqon kara qof kalaa noqon kara lama yaqaano laakiin gacanteena aysan ku burburin dowladnimada yarta ah oo aan haysanno shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay marka haddii madaxweyne xasan sheekh uu intaas diido walaalayaalow na garab istaaga maxaa yeelay annagaa xaq ku soconna annagaa ku soconna waxa dadka u wanaagsan dalkan u wanaagsan dowladnimadan u wanaagsan annagaa ku soconna inta aan marnay marxalada fiiriya oo aan raadinayno madaxweyne xasan sheekh inuu talada dhexda dhigo aan raadinayno shacabka soomaaliyeed waa rafaadeen dhibaatooyin badan baad soo marteen hadda naftigeeda marxalado iyo duruufo adag aad ku jirtaan maciishaddaa qaali idinku ah noloshaa qaali idinku ah
shaqo la'aan baa idin haysa waa idin barakicinaya in badan oo idinkeeda ka mid ah nala safta oo na garab istaaga ma aha dadka muqdisho degan oo keliya soomaaliya dadka degan oo dhan na garab istaaga nabadda garab istaaga dowladnimada garab istaaga doorashada garab istaaga markaasaan wada guulaysanaynaa markaas oo aan annagoo wada soconnaa xasan sheekh maxamuud gacmaha ka qabanaynaa oo jidka saxa aan ku soo ridaynaa ciidamada qalabka sida shacabkiina taageera walaalihiin taageera hooyooyinkiin taageera madaxdiina hore taageera oo shalay idin soo dhistay haddaba gelina haddii la iin diro wax aan sax ahayn oo aad ku burburinaysaan qarannimadiinna iyo dowladnimadiinna aad ku burburinaysaan ha gaarina annaga oo iswadanna ilaahay idinkiis xasan sheekh oo nala socda annagoo iswadanna yaan rabnaa doorasho inaan galno hadduu xasan sheekh naga haro waxaan rabnaa annaga oo iswadanna iyo shacabka oo iswadanna inaan xasan sheekh gacmaha ka qabanno hadday noqoto annaga oo iswadanna shacabka oo iswadanna oo aan wadanno iyo ciidamada qalabka sida inaan gacmaha ka qabanno xasan sheekh maxamuud waxa weeye waxa aan u soconno waa intaas xasan sheekh maxamuud annaga cadow kuma nihin waa walaalkeen shalayna annagaa xukunka u dhiibnay isagana dee waa noo dhiibay waxayna iska ahayd wax sunno ah oo socday oo soomaaliya lagu ammaano oo maalin walba aan meel ku gaarayno walaalow intaas sunnada ah hanaga hadlaynin wax kale ma hayno dalkeenna waa kala qaybsan yahay cadow badan baan soomaali leedahay dhaqaale xumaa jirta duruufo adagaa jira waxa kaliya aan leenahay waxa weeye maalintaas qorisku dhiibka ah in qof walba u yidhaahdo waa diyaaraan ahay waa tanaa uusan qofka isku dhejin waxa weeye intaas weeye intaan ka rabno xasan sheekh maxamuud wax kale oo aan ka rabno ma laha insha allahna waxaan ka rajaynayaa in uu barbosalkayga codsigayga uu aqbalo oo nala soo fariisto labadiisii saaxiibo oo xilka ku wareejiyey uu nala shaaheeyo oo aan talada la wadaagno oo soomaaliya aan u horseedno nabad iyo horumar iyo barwaaqo intaas weeye waxaan ka rabno wixii ka soo hara waxa weeye walaalkeen ilaahay tawfiiqda ha tuso ilaahay tawfiiqda ha tuso jidka fiican ilaahay ku soo aadiyo annaguse ka daalimayno shalayna annagaa ku wareejinay saan sheegay kana xishoon mayno waa u sheegaynaa wixii khaldan annagaa nalaga rabaa inaan u sheegno maxaan ku raahdaa waxa sax annagaa nalaga raba inaan u sheegno intaas wey hadalkayga waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu